maalin uun kadib waxaa dib u bilaawatay soo celinta nadaafadda iyo in la xaaqo goobihii burburka uu ka geystay qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray xarunta degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. dhalinyaro si isku soo xilqaamay oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir uu horkacayo gudoomiyaha dhalinyarada iyo maamulka degmada Hodan ayaa qorshahan fulinayay. waxaana qorshuhu uu yahay in dib loo soo celiyo bilicda degmada iyada oo durbaba la bilaabay in halkaasi nadaafadeeda laga shaqeeyo. gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo goobjoog la hadlay ayaa sheegay in qorshahan ay kaga gol leeyihiin sidii nadaafadda ay kaga qayb qaadan lahaayeen. waxaana uu sheegay in dhalinyaradu ay isu soo xilqaameen. waad u jeedaan saaka waxa halkan iskugu imaaday dhalinyarada ka socota 17 degmo iyo maamulkii degmada ayagoo kaashanayaan waxayna ka wada shaqeeyeen meeshan halkan aad u jeedo oo shalay burburkii soo gaaray inay nadaafadeeda ilaa haddana ku jiraan oo shaqeeyeen masaajidkii dhibaatada loo geystay in alaabta ay ka soo gurbeen xafiisyadii ilaa haddana waa wadeynaa ilaa ay maqribkan waxa diyaar u nahay in hawshan sii socoto insha Allah ta'ala. gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon oo la hadlay goobjoog ayaa sheegay in iyaguna ka maamul ahaan ay gacan weyn ka geysanayaan sidii loo soo celin lahaa dhismaha iyo bilicda degmada Hodan isagoo oo sheegay in halkan muhiim ay u tahay dhammaan howlaha shaqo ee degmada Hodan oo ka maamul ahaan halkan ay ku shaqeyn jireen. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. horta shalay meeshan musiibo ayaa ka dhacday oo loogu geystay dadkii loo adeegayay inta ugu badan ay ahayd dadkii dhibaatada soo gaartay iyo askarku nafweysay meeshan. waxaan marka leenahay dhammaantood ilaahay u naxariisto. marka labaad meesha shalay musiibadii ka dhacday kadib waxaa soo gurmaday maamulka gobolka Banaadir oo shalay nagala qayb qaatay dhibaatadii dhacday si loo xalin lahaay. saakay waxaa bilowday nadaafad guud ahaan degmada Hodan lagu nadiifinayo. waxaa nagala qayb qaatay maamulka guud gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo 17 degmo dhalinyaradii ka socotay waaxda nadaafadda dawladda hoose iyo guud ahaan maamulka degmada Hodan. waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii la yiraahdo inaan isku tashanno dib u dhisano degmadeena waqti dhowna aan ilaahay doo yiraahdo aan dib u howlgelino. waxaan u sheegaynaa cadawga inaan quuso doonin degmadeena aan dhiso doono horena u sii wado shaqadeena maalmaha soo socda hadii la yiraahdo. dib ayaa loo soo celinayaa nadaafadda iyo bilicda ay lahayd halkan oo ah goob shalay laga qorxiyay iyadoo mas'uuliyadda qaraxaasna ay sheegteen dagaalyahanada xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. al-shabaab waa qaraxii labaad oo muddo 8 maalmood ay ka geysanayaan laba xarun degmo oo gobolka Banaadir dhaca degmada Hodan iyo sidoo kale degmada Holwadaag oo labadii bishan qarax ay ka geysteen. maamulka degmada Hodan waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in dib u soo celiyaan bilicda iyo dib u dhiska degmadan. Maxamuud Alxaaji goobjoog xarunta degmada Hodan Muqdisho.